koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan saad u hesho xubinta kalamaan maalin walba fadlan subscribe sar page-kan Dulmidiid Media warnimiyana uu ka amal qorade hamiinki baabuurta makrofanada wiila kiray oo madaxda meelo muhiimka inta la isku qoyto qudbeesi bayaasini meel baabuurta dhaalasi goormaan ladnaanaye lehdankii lugooyadii nadeysay 26 ka juu sunuurad warriyo anigu waxaan garan waayey 26 kan jun waxa idin daba dhigay anagu 26 kan juna sheegaysaan waa leeleelay Somaliland xorriyadeeda waxay la soo noqotay 18 May 18 May aad sheegaysid waa maalinta qashaaruuriska qaatumo war khaatumada seege khaatumo hadna u dhamaatay oo cali khaliif kaleed aan soo gacan gelin warnaayo June iyo July marka la soo gaaro waxaan soo xasuustaa nin xirxiran afka kaliya ka hadlaya oo dhaayo xorbaanahay ku heesay war 26 June maxaa naga garay kooda luliya rabaa inuu gambiye war waxa la yiri June iyo July waqti uu galinba waa jaade maalmo soo jireenaatiin oo jacayl mudane joogistiin caawana qalbigu way jiranaya war sidoo kale dadka qalbiga ka jiran saxaafadu waa loo diyaacaa oo kale inay wax ka duubaan manna cadiyada loo saaraya warnaayo hadda goor waxa la yiri islaam baa tiri lugtaanay ninba markuu qaad marka June iyo July mas'uulba maalin waa ka soo qudbeeyay ninba wuxuu qabtayba war Soomaalida waxa la ogaaday inaan weligeed la gumaysan sababtoo ah dadkii la gumaystay ama dadyawgii la gumaystay afka iyo dhaqanka iyo diintaba waa laga bedelay marka Soomaalidu dad lagu soo duulay ahaayeen dad la gumaystay ma ahayn marka hadda waxaan ka baqayaa inay gumaysi u gacan gasho sababtoo ah afkeedii iyo dhaqankeedii iyo diinteediiba dagaal lagu hayaa ayadaana loo adeegsanaya marka waxaan dhihi lahaa hore looma gumaysane hadda yaan la gumayn warnimada hadda ka hor abwaandoodaan Allah u naxariisto wuu yiri mudaday gumaysigu wateen maamulkii dunida margiyaha dad laga soo xiro wada mareegaysan oo laga mulkiyay baa badnaa waxay muhiimeen Soomaalida saddex miradkii kala macaashay waxyeelada Juliya Joy ku mashquulsan inta laga deysaan caadiga dhuusa marab bay ka oratay gudoomiyihiisuna wuxuu dhigi jiray waa ka shidan tahay war caadiga dhuusa marab kaliya ma ahane hatta balweyne ka shidan tahay warta nabada dhuusa marab shalay ra'iisul wasaare khayr waa lagu soo dhaweeyay roogiyaha oo masaajid laga soo qaadana waa loo dhigay war miyay ku tukanayeen war ra'iisul wasaare markuu dhuusa marab tagay waa gabiyay waxaan u yiraahday waxaan joognaa geeyiga gobonimada dhulkii geesiyaasha waxaan joognaa halkii ay gabdhaha Soomaaliyeed ku heesi jireen aan isguursanay galmudug igey war ra'iisul khayr culimada gabar u qaroomiya war warkaan laga dhax gelinine ra'iisul wasaare wuxuu yiri galmudug maamul dhicisa oo loo dhamayn uma dhisayno warnimada horta cadaada la isugu tagay madax tiro badan oo xildhibaano iyo madaxweyne xaaf kamid yihiin aan isugu tagay waxayna dhaheen doorashada halkaan bay ka dhacaysaa oday kamid ahana waa mahma wuxuu yiri hadda goor nin baa wuxuu yiri 100 halaad baan ku siinayaa inay badbaadi markaas buu ugu jawaabay adeerow taydii karin kala hayd baan ka maali waay war galmudug waxa ka socota khayr ku arag farmaajada kugu fiirsi war sidaas ma ahane cadaado dhusmareeb shaakir xaaf waxaaf maal maxamuud waay baasho warnimada warkina waxaan ku soo xasuustay hadda goor baa waxa la yiri abeesa waxay cuni jirtay amuurada yar yar ka oo dhan maalintii dambe goodaada afka gashatay hadda goodaada waa ka sun badan tahay oo haday laqadana waa ku dhimanaysaa haday iska tuftana waa ku indhabeelaysaa marka waxaan u malaynayaa macallin maxamuud iyo xertiisu inaysan xaaf ka dambayn war indhaha nabadiina loo u jeedaay xaafuhu mari doona jidkii shariif war xeefadu jidkii shariif maro Ahmed Mudada miyuu ka dambeynaya soo asla mari maayo marka waxa la yiri geerow soo markaad ciid daaqdun baa lagu yaabaa marka waxaan ka baqanayaaba inay Muuse Biixi ay faraha la soo galaan ku gubtaan warta madaxweyne waare iyo Yuusuf Dabageed wali degmada madaxweyne ma isku haystaan waxaad ka leysaan maahane madaxweyne farmaajo waxa uu dhahay dawladda ay xoog leh baan u baahanahay dawladda isbarbar
dhacayso ma baahnin warnimada waxaan la yaabanahay dowladdii ayagoon xoog lahayn bay shacabkii ka cabanayaan oo ay jidadkii ka xerxeratay hadday sii xoogaysato talow muxuu shacabku samaynaya warxaab hadduu rabo in dowladda la diriro waara dabageeda u maarala'yahay war baloweyne wiilkii gabadha webiga kala tallaabay markii dambe layir webigay ku dhimatay waxaa caddaatay in asigu dilay isagoo qoslay oo sheekaynaya ayuuna sheegay inuu asigu dilay wuxuuna yidhi waa jeclaay agteeda ha laygu duugo waana la toogta baa la yidhi war gabadha jeceshay lama dile warniyo jacaylkaasi waali badnaaye war ma haysaana somalilan tv-ga qaranka laga fiirsado waa laga mamnuucay war aljasiire iyo CNN iyo Ethiopian TV-ba waa laga daawadaaye maxaa TV-ga Hargeysa ku diidaysaa war adeer qoladan jaarka nahay bakooran ka qaadnaa markan daawano war al-shabaab VOA BBC ninka dhigaysta waxay dhaheen waa murtad war miilooyinka ayadoo xiraya ku qarxay murtadiinay waa aqoonsadeen war anigu waxaan ka baqayaa ahlu sunna inay caaf u aqoonsato odan weyn oo khawaarij ah warnimada waxaa la yidhi waayahan xalay kabay ma tirin nuun iska badaaye waataan raallaydiisa iyo shiinkii maanacaye balan soo ragaal celiya waad igu taqiineene xalaa laygu soo riday maraan seexday gurigiiye abwaanadiisa meelahan dhow bay ka helhelayaane afartaa bilowgii hor iyo darartii koobaad dheh roob soo hilaaciya daruur qaba baxdoodii dheh badda mawjadeediiyo dawaca qabatay neefkii dheh qarax dhacaya gowdiisii iyo lama iloobaan dheh baabuurka madaxweynaha hoonka ka isiiyey iyo macal debdemiskoo iskoys jaama soo galay dheh cilmi ugu cabaalnaa jiroon gees ka soo qoday dheh kixda qodobadeedii dhexoonkuugu soo daray dheh afar kale dhammaadkeediioo soo gunaanaday dheh intaasaan ku joojinay hayaa maantay gabaygiiye xigmad lama qasaarshee warkii ma idin deeqsiiye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badine maantana matalaad keentay warnimada waxaa la yidhi siyaasado rafacan baa jiroo rabay dalkeenniiye nin waliba siduu rabo haddaan laga rakaadsiinin raxanraad ma daa'iye inuu rabash abuuraaye rugcadaaga hawshiisibuu riiqay kuraygiiye qof waliba ku soo roor intuu reerakaashadaye wax raggii ku lumay baa hablihii raadinahayaane rabbiyowna daba qabo sidii ranadaa garanay war kufsii raggiyaa ku khasaaray laakiin hargeysa gabdhaa la yidhi ninay kufsadeen maxkamadduna waxay caddaysay been inay too gabdhaha lagu been abuurtay marka gabdhaha beenaa ka sheegniyo war naga tag qaaligii maxkamadda hargeysa waa is-casilay sidii loogu keenayo kiisas waaliye war qoladina geeska iskugu timaado maca midka qosolka xun leh mawaalantiin adinku war kii qosolka xumaay isbaaradii walla weyn oo shalay difaacayuu aaday war dadka beenta ka daa dadkii oo dhan cadaabay aadeen been badana kuwa dhuusamaro aadan maxay yihiin war jijiga waa laga soo laabtay niyo war nimayow dhuusamaro diyaarad badar sidaa laga sheegay maruna war dadkiinana caadi ma tiidin doniyo meesha lagu kala kaxeeya war xishooda qaar allah idin siiye